taariikhdu markay ahayd 1895 ayaan in Talyaani ahayo magaciisa la oran jiray Valverdo Pareto ayaa wuxuu u fiirsaday dadkii ku noolaa wadankiisa kadibna waxa uu soo baxday arin aad u cajiib ah kaasoo ahaa in dadka hantida haysta ee bariga Talyaaniga ku noolaa kaliya ay wadanka ka yihiin 20%. 80% ka soo harayna waxay u shaqeeyaan 20%. haddana wuxuu u sii fiirsaday qaabka ay nolosha iyo adduunkan u kala socdo waxa uu soo baxday in nolosheenan dhanba ay sharciga ay ku dhisan tahay oo tusaale ahaan imika maanta ninka ganacsadaha ah 20% macaamiishiisa ka mid ah ayaa soo geliya 80% dhaqaalaha uu faa'iido dhinac walba maanta nolosheena aad eegtana sharcigaasi uu ka jiraa adiga laftaada imika haddaad isweydiiso oo tiraahdo maxaan guul adduunyadan inta aan joogo aan xaqiijiyay waxa ku soo bixi doonta wixii aad hawla qabatay oo dhan hadday 10 hawlood ahaayeen 20% kaliya oo 2 hawlood u dhiganta ayaa ka dambaysa guusha aad gaadhay qaanuunkan ama sharcigan berigi dambe caan buu noqday waxaana loo bixiyay Pareto law ama waxa la yiraahdaa 80-20 baa la yiraahdaa waa qaanuun caana buugaag ba xataa laga qoray YouTube-ka aad buu ugu jiraa wuxuu sheegayaa markaa sharcigani in hawlahaaga ama guulahaaga 20% kaliya ay mas'uul ka yihiin 80% kale ee aad gaadhay marka dadka guuleystay adduunyadu maxay kaga duwan yihiin buur dadka kale hal arrin oo kaliya ay kaga duwan yihiin waxay awood saaraan 20% guusha gaarsiinaya 80% kalena waqti yar bay siiyaan imika maxaa keenay in dhalinyaradu ay caajis iyo wahsi iyo dib u dhigasho ay mar walba soo weeraraan wax kale ma ahan qofku wuxuu ka caajisayaa 20% waaweynaa ee wax soo gelinay muxuuna waqtigiisa inta ugu badan nasiib darro ay ku baxaysaa 80% ka soo haray marka waxaad isku daydaa shalay oo kale waxa soo baranay qaabkii aad noloshaada qorshe ugu sameyn lahayd ilaa 10 baan gaarsiinay ahdaafta la qorayo maxaa laga doonayaa marka 10 hadday ahaayeen isku day inaad kala soo dhaxbixi karto labada kuugu muhiimsan kadibna labada waqtiga inta aad haysato inta ugu badan labadaasi kuwa kalena wixii aad waqti u hesho iyo qaabka aad waqti ugu hesho ayaad u kala maareen doontaa sidoo kale waxa xusid mudan sida uu qoraaguba sheegay in dadka guuleystay ay leeyihiin wax loo yaqaan self discipline waayo 20% ka sababta dadku uga caajisayaan mataqaana ay 80% awood kuwan yar yar u saarayaan 20% kani shaqo badanna way u baahan yihiin waqti badan iyo juhdi badanna way u baahan yihiin marka naftu waxay ka caajisaysaa time-ka iyo shaqada weyn ay qabanayso marka maxay kugu mashquulinaysaa naftaadu waxyaabo yar yar oo hoose taasaa keenaysa mar walba marka in noloshaadu ay dib u dhac ay ku jirto sida ogeed waxa laga maarmaana markaad soo saarto 20% kuugu muhiimsan inaad self discipline aad samayso oo naftaada ku khasabto ilaa shaqadaasi ay ka dhamaan doonto casharkaasi marka wuxuu ahaa casharkii saddexaad ee buugeena waxaan rajaynayaa in wax badan oo nolosheena ka bedeli doono ha iloobin muuqaalka inaad like saarto si uu dad badan u gaaro lana sii wadaago asxaabtaada qofkii aan maqlin si uu uga faa'iideysto sharcigan insha Allah casharkeena soo socdo waxaynu qaadan doonaa maalinka berri